daawadayaal rabadaankii ayaan muddo ku kala maqnayn waxaan rajaynayaa toddobaadkan inuu yahay toddobaadkii u horreeyay barnaamijka muqdisho iyo maanta aan idiin soo dayno maanta waxaan uga hadli doonaa mawduuc aad u xiiso badan oo aan rajaynayo dadka Soomaaliyeed inay ka heli doonaan gaar ahaan qurxinta magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada Makka al-Mukarrama dhalinyaro Soomaaliyeed oo isu taga ee dhawaan waxay magaalada Muqdisho ka bilaabeen mashruuc ay ugu magac dareen ubaxa caasimadda ama dhalinta ubaxa caasimadda halku dhigoodan wuxuu yahay quruxso dalkaaga ayaa lagaaga hormarin dhalinyaradaas ayaa waxay qabteen hawl aad u wanaagsan barnaamijkeena ayaan jecelahay inta uu socdo inaan ku wareysano sidaad arkayseen hadda waxaan taagnahay Muqdisho laakiin qaarkiin baa meel kale laga yaabaa inay u maleeyaan wadadii ayaa isbedeshay halkan waa ka soo horjeedka masjidka isbahaysiga islaamka baarlamaanka Soomaaliya ayaa halkan mar walba ku shira wadada waxaa maraya gaadiid kala duwan oo nuucyo kala duwan leh waana wadadu mid aad u qurux badan rinjigan hadda aad arkaysaan ee idin muuqda waxaa ku soo kordhiyay dhalinyarada ubaxa caasimadda oo quruxso dalkaaga halku dhigoodu yahay haddaba sida aad u jeedaan waxaa sidoo kale la bilaabay dhirtii oo kale oo aad arkaysaan in dhir aad u qurux badan halkan lagu beeray dhalinyaraduna ay shaqo aad u wanaagsan qabanayaan markii hore magaalada Muqdisho waxaa naga cusbaa dadka Muqdisho ku nool intii la socotay boorar wadooyinka la suray laakiin hadda waa wax la taaban karo oo muuqda oo adigu aad arki karto rinjigan oo kale ma jirin dhalinyaradan waxay hadda ku guuleysteen saddex arrinta koowaad oo ah in wadadii la rinjiyeeyo arrinta labaad oo ah in wadadii dadka meelaha ay ka goyn lahayn la sameeyo iyo in wadadii la dhireeyo sidaad arkaysiin laakiin sidoo kale waxay ku dadaalayaan hadda inay sameeyaan ama qorshahooda xiga uu yahay meelaha qadiimiga ee taariikhiga ah inay ku dadaalaan sidii dadka Soomaaliyeed loogu qurxin lahaa loona tagi lahaa mararka taariikhda la xusayo kale ama taalooyinka ku yaal magaalada Muqdisho kale inay qurxiyaan isla markaana astaantooda ay ku soo celiyaan waa dhalinyaro shaqo fiican qabtay waxaan leeyahay soo dhawaada waxaan jeclahay inaan mid ugu soo dhaweeyo si ay barnaamijkan noogu bilaabaan shaqadan ahayna waxaan ugu dhaliyay waxay tahay waa wadan jacayl iyo inaan wadankeena aan horumarino oo aan ka qayb qaadano dib u soo kabashada wadankeena inaan ka qayb qaadano sidaas ayaa waxay nagu dhalisay inaan shaqadan aan qabano oo ay noqoto shaqada koowaad oo wadankeena aan qabanayno bilicdii magaalada Muqdisho inaan dib u soo celino oo aan bilicdii magaalada aan soo celino annagoo kaashanayna shacabkeena muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo dadka muxuu ahaay wadaniyiinta ah ee hantida kule magaalada Muqdisho marka waxa nagu dhaliyay fikirkan waxay tahay in isbedel aan ku sameeyno caasimadda magaalada Muqdisho horta annaga marka koowaad waxaan nahay dhalinyaro is abaabushay oo iska wax u qabso ku shaqeynayaan nahay manihin uma dhisnin organization NGO ah oo inta budget meesha ku qaata shaqadaas interest ka fiirinaya ma manihin annaga interestgeena ama faa'iidadeena waxa ay tahay waxaan raadinayno in caasimadda magaalada Muqdisho ay bilicdeedu dib u soo kabato oo caasimadda magaalada Muqdisho ay noqoto mid caasimadaha adduunka la mid ah oo qurxan marka ujeedadeena iyo hadafkeena waxa uu yahay inaan gaarno aan rabno in magaalada Muqdisho isbedel aan ku sameeyno ma aha macnaheenu inaan muxuu ahaa aan dhaqaale ku helno macnaheenu ma aha in annaga aan muxuu ahaa aan ku sameeyno muxuu ahaa dhaqaale aan ka sameeyno ma aha laakiin waxaan ugu dhaliyay waxa ay tahay in magaalada Muqdisho isbedel aan ku sameeyno waxaan rabaa inaan bayaamiyo waxa uu yahay qorshaha ama ubaxa caasimadda dhalinyarada ubaxa caasimadda dad badan waxay aaminsan yihiin sida sheegtaba dadku laba qayb ay u kala baxaan qayb aaminsan in waxaan ay dawlad ma ahana cid kale aysan qaban karin oo ay dawladda waxaan fangareeydo ama hay'ad iyo qayb aaminsan waxaan inay yihiin iska wax u qabso oo dadka hore ka dambeeyaan marka bulshada labaas ay u qaybsamaan waxa rabaa marka inaan cadeeyo dadka aaminsan inaysan waxaan ay dawladda xaggeeda ka socdaan oo wax dawladda sameey karto bis ayeen oo shacab sameey karin waxa rabaa inaan dhaho dhalinyarada ubaxa caasimadda waa dhalinyaro tayo leh oo u midowday inay wadankan wax ka bedelaan oo ay bilicdiisa dib u soo celiyaan magaalada Muqdishona ay ka dhigteen marka hore focal point-gooda inay magaaladaas wax ka bedelaan kadibna ay u gudbaan wadamada kale magaalooyinka kale ee caasimadaha Soomaaliya sidoo kale marka magaaladan waxaan rabnaa inay la tartanto caasimadaha Afrika annaga waxaan rabnaa inay role model ka dhigano Rwanda kale marka aragta aad u qurxoon tahay wadan kastana sida ogsoon tahay dad dabada ka yimid ama wadanka u dhalan ma qurxiyaan dadweynaha markaas jooga qurxiya marka especially dhalinyarada wadanka u dhalataa la rabaa inay ka shaqeeyaan bilicda caasimadda annagu marka taa ka duuleynaa fikirkan qaadanay aadayna noo soo dhaweeyeen dadweynuhu labada qayb marka wax rabaa inaan u cadeeyo in barnaamijkan uu yahay dhalinyaro isxilqaantay
oo iskood wax u qabsanaysa dadweynahana uu u furan yahay cid kasta oo rabta inay ka qayb qaadato oo soqolo gaar ah ku xirreyn bulshada horta waxyaalaha aan ka dhaxalnay oo haddaan dhanka oo wanaagga u soo hormaro wanaagga markasta la hormariyaa dadka waxaan wanaagga ugu fiican oo ahelna waxa waaye markii qofku inta noo istaago uu salaamo oo na shaqo qaran haysin wadanka wax fiican soo siyaadiseen waa mahadsantihiin dhanka oo xumaanta haddaan u soo laabto dadweynaha waa laba qayb saa sheegtaba inta noo imaadaanayna dhahaan yaa idin waraabinaya waxaan istustus waaye dawladdu waa dhacday hadda maxaa ugu soo aadeen oo mar hore u sameey weydeen waxyaalo badan hadallo noocaas markii aan maqalno runtii waana dhibaan annaguna waxaan idhaahnaa wax kasta bilaaw way leeyihiin bilowgiyaan bilownay wax kastana iskama dhashaan meelay ka soo bilowdaan ay leeyihiin iyo meelay ku arkaadaan marka waxaan u sheegnaa inaan ka daalin barnaamijkan oo uu yahay wax annaga naga soo go'ay oo ay naga tahay wadan jacayl iyo inaan wadankeena aan la tartansiino wadamada kale Afrika waxaan rabnaa dhalinyarada aan tahriibayday oo rabay inay Yurub u tahriibaan oo meel kale u tahriibi jiray oo badaha ku dhima jiray inay wadankooda fahmaan muhiimadda uu leeyahay oo ay arkaan wadankoodii qurxoon oo bilicdiisa ay dhalinyaro soo celiday kadibna ay wadankii wax ka quruxsadaan ayaguna ay joogaan oo cid wadan kale oo annaga nala mid aan u ordin oo dhahin wadankaas maanta rabaa tahriib inaa u aado badda aan u sii mar dhex mara wadankiina marka tagtaa haddana xamaali noqonaysid oo aadan shaqo fiican helaynin oo hoteelada aad ka shaqaynaysid marka jadwalkaas oo dhan waxaan rabnaa inta bedelno inaan wadankeena jacayl wadanimo iyo dadnimo inaan muujino oo aan dareenno wadankeena inaan anagu leenahay runtii barnaamijka hadda aan wadno annaga waa barnaamij danguudna dadka dhan ka wada dhaxeeya khaasatan haddaan u soo gudbo dadka wariyaasha iyo fanaaniinta waxaan ka codsanaynaa fanaaniinta iyo wariyaasha hadday maalkoodii ay nagu deeqi waayeen oo ilaa hadda fanaan maan arag ama wariye wax nagu soo deeqay laakiin waxaan ka codsanaynaa magacoodii ayagoo isticmaalayo annagana na matalayo in bulshaweynta Soomaaliyeed ay message naga gaarsiiyaan ah in dhalinyaro inay wadankii wax ka bedelaan rabaan qurux ku soo kordhiyaan rabaan ay soo baxeen fikrad saliimana wadaan waxna taageero ay bulshada Soomaaliyeed uga baahan yihiin kuma inaan tashanayna gacan kaleeto in aan ku bilowno oo gacmaheena marka horeeto aan wadajir ka dhignay annagoo kaashanayna jeebkeena iyo wixii tasiilaad annagoo aan soo helnay waxyaabaha aan isdhahaynay aan uga bedelanahay ururadii kale la sameeyay waxay tahay bal annaki in aan isku day sameey karno annagoo ka duulayna war adinku maxaa qaba kartiin annagoo inta dhagax meel dhigna aan dhahaynin dhagax u horeey waa dhignay warkaale dadkii oo mashruuc keen annagoo aan lacag keen annagoo dhahaynin marka hore waxaan ka dhignay in annagu aan jeebkeena iska taakulayno oo aan ka bilowno sayidka ilaa aan geyno madaxtooyada agteeda intaasna waxaan tusaynaa dadka war in annagu wax bilaabi karno oo bilowga aan sameynayno annagoo weydiinaynin dad taageero aan dhahaynin war lacag keena tan kaleeto annagu waan bilownay bulshada Soomaaliyeed ee hambalyeynayda oo jecel inay wax ku deeqaana waan soo dhaweynaynaa ma jirto hadda sambal aan u sameynay sidii dad inay akoomo wax ku soo shubaan laakiin istaraatiiji balanka aan hadda soo wadnaa waxay tahay qof walba Soomaaliya inuu ka qayb qaato qorshe uga qayb qaadan lahayn aan soo dejino hadduu akoon lacag ku soo shubayo iyo hadduu qaab uu keenayo face to face uu keenayo marka waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed oo dhan soo dhawaada dalku waa dalkeenii lama kala xigo bilowga aan baan lahayn ma ahane dhamaystirkeeda idin wada yaala wax walba oo la bilaabana waxay u baahan yihiin fan iyo lacag in loo helo haddaan lacag loo helaynin ma jirto qof rinji ku siinaya oo lacag la'aan ku siinaya ma jirto qof geed ku siinaya waayo qof walba rinjiga markuu keenaana wuxuu keenaa inuu lacag ka baxsado oo noloshiisa ku maareeyo mid geedka abuurayo marka hore abuurka sameynayna wuxuu rabay inuu lacag ku helo oo lacagtiisa uu noloshiisa ku maareeyo kan siliga keenaya kan birta keenaya waa isla mid marka dhammaan waxay u baahan yihiin fan lacag la'aan darteedna baalkiisa wax ma qabsoomayaan marka waxa ugu horeeya wax mishiinka wax dhaqaajiya waa finance in la helo lacag markii la helo kadib ayaa la heli karaa muruqeeniyo xoogeeniyo maskaxdeena isugeeyay magaaladeena qurxiyay sidii muraayadoo kale magaaladeena qurxiyay anaga horta go'aankeena wuxuu yahay inaan dhiirigelino dhalinyarada Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed intaba inaan dhiirigelin aan sameeyno oo aan tusno in dhalinyaradu ay wax wanaagsan ay qaban karaan dhalinyarada rumaantii waxa lagu tilmaamaa inta badan inay wadanka tahriibaan inta badan waxa lagu tilmaamaa dhalinyarada inay muxuu ahaay aysan wadankooda wax u qaban
anaga marka waxaan rabnaa anagoo taas ka duulayna inaan bulshada Soomaaliyeed inaan tusno in dhalinyaro nool ay jirto oo noloshii dhalinyaro nool oo fikirkoodu nool yahay oo aqoon leh oo wadankooda isbedel gelin kara inay jiraan wadan walba adduunka aad aragto dhalinyaro isbedel ku sameeyay dhalinyaradu waa xoogga dal kasta xooggiisa waay maadaama anaga aan marka xooggii dalka maadaama aan nahay oo aan dhalinyaradiisa aan nahay wadankan uu iska lahaa waxaan rabnaa inaan wadankan sumcadiisa iyo sharaftiisa inaan dib u soo celino oo nolol ku daysto oo dhalinyarada tahriibaysa oo wadamada shay aadaya ay dareemaan horumarka wadankooda ka socda ayna ka qayb qaataan ayna hilmaamaan inay wadamo shay u tahriibaan oo wadanku uu noqdo mid degan walaa horta anaga diyaar u nahay mar walba inaan caqabad horta inaan la kulanno waayo meesha aan ku shaqeynayna waxa weeye waa wadan burburay oo muddo dheer dawlad la'aan ay ka jirtay dadku ma fahansana waxa aan hayno dadku waxa aan hayno waxay u maleeyaan wax oo dawladdu ay leedahay marka waxaan rabnaa bulshada inaan barno oo bulshada aan tusno shaqada aan haynahay inaysan dawladdu lahayn wadankan dawladdu ma laha ee dadka iskale annaga marka shaqada aan qabanayna waxaan rabnaa inaan dadkeenna Soomaaliyeed inaan wadankeena aan ku dhisno berigii hore waxaa jirtay xilligii Soomaaliya dib u dhiska dhismaha fiican lagu sameynayay waxaa dhacday in iskaa wax u qabso lagu dhisay rumaantii dadka iskaa wax u qabso markaas lagu dhisayay oo lagu sameynayay wadanka iskaa wax u qabso waxay ahayd mararka qaar dadku waa si xoogaha loogu sameyn jiray laakiin haddana waxaan rabnaa inaan iskaa wadankaaga u dhiso inaan iskeen wadanka u dhisno annaga oo kaashanayna shacabkeena waxaan u furannahay shakhsi kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah waxaan u furannahay ganacsade kasta oo raba inuu wadankiisa maal gashado waxaan u furannahay cid kasta oo wanaaga jecel iyo quruxda annaga marka waxaan nahay dad muxuu ahaayey raba inay bulshadooda ay ka sameeyaan muxuu ahaayey quruxdan inay bulshada ka dhex sameeyaan ma rabna in dad shisheeya ay na maalgeliyaan waxaan u baahannahay shacabkeena Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan horumarkan aan wadno iyo wanaagga in shacabku ka qayb qaataan barnaamijkan dadweynaha aad ay u soo dhaweeyeen wuxuu ahaa fikir aan dad badan ku fekerin laakiin qatartiisana lahaa markii la bilaabana dadweynaha ay aad u soo dhaweeyeen oo waxaan dareemaynaa in aadna lagu hambalyeynaayo baabuurta kale markay dadku wadaan ay intana u istaagaan noo hambalyeynayaan qof kasta oo meel ama xibin ka haya ama dawladda qaabilsan oo bulsho wax u hayaan markii aan u tagno inuu soo dhaweeyo oo si fiican noola macaamilo marka waxaan dhihi karnaa barnaamijkan aad bay dadweynuhu u jecel yihiin inay fariinta aan dirayno haddaanu nahay dhalinyarta ubaxa caasimadda runtii hadal waan ku diray hadal midda waxaa ka sii muhiimsan waxa aan qabannay oo magaalada Muqdisho aan ku soo kordhinay ayaa ka muhiimsan waxa annaga aan afka ka sheegno because Soomaali waxa lagu xasuustaa ama dadka badankood qof aan wax qabanayo dadka wuxuu leeyahay waxaan qabto uu ku faana annaga kuma faanayno wadanka faanaya maanta Muqdisho faanayso sawirka maanta ay ku gashay wadada marka al-mukarrama ama sayidka ay ku gashay dadku ma rumaysanayaan Muqdisho meesha inay tahay marka waxaan rabnaa inaan annagu fariinta aan u dirayno dadku waxa waaye hawsha aan bilowgeeda leenahay ma ahane dhamaystirkeeda qof kasta oo Soomaaliya oo muwaadin laga rabaa haddaad ku taageeri karto dhaqaale ahaan haddaad ku taageeri karto fikrad ahaan haddaad ku taageeri karto wadanka waxaa ka jiro hadda caqabadahan haysto oo barnaamijka markaas sameynayna waxaa ka mid ah ariya joogo hadda waxaa harta nasiib daraa maadaama annaga dad burbur ka soo baxayaan caasimadda Soomaaliya in xoolo lagu arko adduunku waa ka mamnuuc laakiin way dhacday laakiin waxaan rabnaa maanta hadda aan joogno dhirtii qaybo ka mid ah waxaa cuna arigaas waxaa iskale dadweyne dadaa iskale nagama dheero waxa weeye dadku dadiska waay qofka waxaan leenahay qofka ariga leh waxaa ku taageeri kartaa arigaaga inaad ka ceshito meesha waxaan leenahay midka kale oo aan wax bixin ku taageeri karaa ariga markuu cunayo inuu ka celsho waxaa kaloo muhiim ah oo laga sii muhiimsan annaga barnaamijka aan wadno wuxuu isku jiraa 3 qayb waay waxaa ka mid ah raamigii inaan rinjiyeyno marshabiyeediga markii la rinjiyeeyo wuu qulxsan yahay shayga qofka gurigiisa marka mutuleelka oo biyo ku daato ama wasaq lagu daadinayo ama gurigiisa hortiisa wasaq lagu daadinayo uu ka dhiidhinayaa ama gurigiisa hortiisa dhagax rinjiyeysan in gaariga ka maro uu diidaya laakiin hadda waxaa dhacday qofkii wadadii ayadoo jaam markay noqoto baabuurta dawladdu ha lahaato mas'uuliyiinta shacabka dadweynaha ha lahaato laamigii uu quruxsan yahay kama xushan uu ka dilboodaa markuu ka dilboodo rinjigii waxa waa rinji wasaqda uu qabanaa rinji cad waa rinjiga hadduu madowga u badnaa lahaa ma qaban lahayn laakiin rinjiga wasaqdu qabanaa taasna waa problem waxaan ka codsanaynaa dadka baabuurta iska leh in ay rinjiga ay ilaaliyaan waxaa kaloo sii jirto dadku inay jabiyeen meeshii geedaha lagu abuuray hadda dhowr baabuura waxay sameysay inay wadadii marsiyaan midaas waxaan leenahay taasna waxa waa muhiim waa baabuurta inay ilaaliyaan waxaa kaloo ka sii muhiimsan waraabka
hadda annagu mashruuca markaas dadku waxay leeyihin wargeedaha way qalalayaane laabla ka caawadiine geedka markaa abuurtaan waa ka tegi doontaan laakiin annagu waxaan u sheegaynaa hadda waxaan samaynaa system ah inaan maalin dhaaf u waraabino gaari dameeraan ku waraabinaa dadku qaarna waxaan u sheegnay qof kasta gurigiisa hortiisa inuu waraabiyo laakiin waxaa ka sii muhiimsan sida loo ogaado Soomaaliya inay isbedesho oo wax qabad qof kasta diyaar u yahay saddexle qofka inuu xaafadiis ka soo qaato saddexle wax weyn maahan soo qaado waraabi meesha dhigo biris wax ka soo qaado taas waxaan leenahay waa mashruuc barnaamij ku hirgalayo marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed dalkaaga quruxso yaa lagaaga hormarin muqdisho waxaan rajaynaynaa 2 bil kadib inay isbedel ku soo kordhino waa maasantiin way jiraan dad oo ballanqaadyo sameeyay dadna dhiirigeliyay si duuduuba dadka Soomaaliyeed oo dhan waa dad wada samaha wada jecel oo xumaanta nacab markii samahan la arkana dad badan oo ka jawaab way jiraan waa mahadsan yihiin alle meel walba ay joogan iyo tatal walba ay leeyihiin marka shacabkana waxaan ka rabnaa waxay tahay hooyada guriga joogta iyo qofka madaxdaaba waxa laga wada rabaa waxay tahay in ay wixii ay awoodaan markii aan soo bandhigno balaanka aan ugu talagalnay in lagu contribute gareeyo qorshahan inay ka wada jawaabaan aan rajaynayna marka waxaan leenahay Soomaaliya gacmahaas wada qabsana dalkeena aan quruxsano dadnimadu waxay ku jirtaa dalkeena oo quruxsanaada horta hadda laba qorshaan bilowno oo rinjigi iyo geed beeristi faceka labaad ama wajiga labaad waxa soo socda in aan nalayn sameeyno maalmaha ciidaha ama maalmaha qaranka oo kaleeto waxaan u dejinay qorshe kale qorshahaas oo kale noqon doona maalinta soo bandhigna la wada arki doono mid la cajabiya waayo hadda wuxuu qarsoon yahay waxay ku fiican maalinta la soo bandhigo in dadka kooda asqararaan war la qaba xiiso mala ka dhigmayna waxaan rabnaa inaan maalintaas bam siino oo aan dadka wada tusno marka mid kaleeto oo nalaynta ana markii aan rinjiyeyntan iyo aan dhamayno geedahan waxaan rajaynaynaa inaan nalayntii aan bilowno nalayntii aan wadno maskaxdeena isu geeyaan muruqeeniyo xoogeeniyo maskaxdeena isu geeyaan magaaladeena qurxiyay sidii muraayadoo kale magaaladeena qurxiyay sidii muraayadoo kale sida milixda oo kale maanta adduunka ugu muuqataa